kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta. Qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah boqolaal qof oo maanta magaalada Jigjiga ku soo dhaweeyay hoggaanka ONLF oo halkaasi gaaray kadib markii Ethiopia ay ka saartay liiska argagixisada. booliska Israel oo sheegay inay hayaan cadeyn ku filan oo maxkamad lagu soo taagi karo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo xaaskiisa oo musuqmaasuq loo haysto. wasiiro iyo aqoon-yahano ka socda Soomaaliya iyo Turkiga oo Istanbul ku yeeshay shir ku saabsan xiriirka Turkiga iyo Afrika. sidoo kale waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo qodobo kale. aan ku bilownay magaalada Jigjiga ee xarunta maamulka Soomaalida ee Ethiopia waxaa maanta dib ugu laabtay hogaamiyaha jabhadda ONLF Admiral Maxamed Cismaan iyo xubno kale oo la socday. dadweyne fara badan oo ruuxaya calaamada jabhadda ONLF ayaa hoggaanka ONLF ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Jigjiga. hoggaanka ONLF ayaa shalay ka degay magaalada Addis Ababa kadib markii ay ka soo duuleen magaalada Asmara. wasiiro ka tirsan dowladda dhexe iyo madaxweynaha maamulka Soomaalida ayaa garoonka Addis ku soo dhaweeyay hoggaanka ONLF. soo noqoshada ayaa qayb ka ah heshiiska ONLF iyo Ethiopia ay bishii Oktoobar ku saxiixdeen magaalada Asmara iyo go'aankii ay dowladda Ethiopia liiska argagixisada uga saartay ururada mucaaradka ee ay ONLF-na ka mid tahay. booliska Israel ayaa maanta sheegay inay hayaan cadeymo ku filan oo maxkamad lagu soo taagi karo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo xaaskiisa oo loo haysto musuqmaasuq. waa markii saddexaad oo ay booliska ku eedeynayaan Netanyahu iyo xaaskiisa Sara inay sameeyeen musuqmaasuq. kiiska hadda ay booliska heleen ayaa ah in ra'iisul wasaaraha Israel iyo afadiisa ay qaateen laaluush isla markaana ay sameeyeen been abuur. Netanyahu ayaa hadda maanta ka qayb galay shir toddobaadkiiba mar ay yeeshaan golihiisa wasiirada, laakiin kulankii maanta wax xiriir ah lama lahayn eedaha loo haysto. laakiin qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ayuu ku sheegay in eedaha loo soo jeediyay ay yihiin kuwa aanan sharciga ku saleysnayn, ugu dambeyntiina ku dhammaan doona natiijo la'aan. booliska iyo dacwad oogayaasha ayaa ku eedeeyay Netanyahu in uu siiyay qandaraasyo shirkadda Bezek Telecom Israel oo ah shirkadda ugu weyn dhinaca isgaarsiinta Israel. taasi beddelkeeda waxa uu ka dalbaday in shirkaddan oo leh qalab warbaahineed inay si wanaagsan u tabiso wararka ku saabsan isaga iyo xaaskiisa. Netanyahu ayaa beeniyay eedahaasi. ku dhawaad 100 ruux oo ay ku jireen 16 sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliska ayaa dhaawacmay, in ka badan 200 oo kalena xabsiga ayaa loo taxaabay kadib mudaharaadyo rabshado watay oo Sabtidii shalay ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska. markii saddexaad muddo 3 toddobaad ah oo isku xiga ay mudaharaadayaasha oo intooda badan xireen jaakad jaalle ah waxay isugu tageen fagaaraha caanka ah ee Champs-Élysées ee bartamaha Paris. isku dhacyada ayaa bilowday saacadihii hore ee Sabtidii shalay waxaana ay soo gaareen ilaa xalay saqdii dhexe, iyadoo ciidamada ammaanka ay la tacaalayeen mudaharaadayaasha rabshadaha waday. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in mudaharaadayaasha ay faafinayaan qas iyo qalaanqal, isla markaana rabshadaha aysan ugu qiildayi karin wax walba oo ay damacsan yihiin. kooxaha ku mudaharaaday magaalada Paris ayaa ka careysan sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka iyo maciishada wadanka oo qaali ah. wasiiro iyo aqoon-yahano ka kala socday Turkiga iyo Soomaaliya ayaa waxa uu shir ugu soo gabagaboobay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. shirkan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda daraasaadka iyo horumarinta bariga Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Istanbul ayaa waxa looga hadlay xiriirka Turkiga iyo Afrika iyo waliba xoojinta iskaashiga Soomaaliya iyo Turkiga. Xasan Cabdi Xasan oo ka tirsan hay'addan ayaan ku wareystay khadka Skype. xasan, muxuu ahaa hadafka laga lahaa shirkan? shirkan aan qabanay waxaa looga dan lahaa in lagu xoojiyo xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo Soomaalida. si guud wuxuu u beegsanayay in la ballaariyo wada shaqaynta u dhexeysa Soomaalida iyo Turkida iyo Soomaalida dhulalka ay degto sida wadamada Kenya, Ethiopia, Djibouti, Uganda iyo Tanzania oo xataa Soomaalidu deegaan fiican ay ku leedahay, ganacsiyana ay ka samayso. xasan, xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo Afrika waa uu sii kordhayaa gaar ahaan kan Soomaaliya iyo Turkiga. marka Turkidu ma ka sheegeen shirkan mashaariic cusub?
guud ahaan shirka waxaa kasoo qayb galay waxaa partner ku ahaa hay-addeena hay-ad la yidhaahdo SETA oo micnaheedu yahay hay-adda cilmi baarista dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada dadkii ay martiqaadeen oo u badnaa dadka socda hay-adaha dowladda Turkiga gaar ahaan kuwa qaabilsan waxbarashada kuwa taageera dowladda ay dib u dhiska ka taageera sida hay-adda wada shaqaynta caalamiga ah ee hoos timaado xafiiska madaxweynaha waxa ay sheegeen in heerarka hadda uu joogo wada shaqaynta Soomaalida iyo Turkiga uu aad u hooseeyo waxyaabo fara badan in laga sameeyayna ay tahay aqoon-yahanadii kasoo qayb galay shirka iyo guud ahaan madaxdii timidna waxay ka wada dhawaajiyeen in laga gudbo heerka oo wada shaqaynta oo ku tiirsan kaliya caawimaadda oo loo gudbo in si heer sare ah high level partnership in la galo oo Soomaalida iyo Turkiduba ay ka wada shaqeeyaan mashaariic oo ganacsi oo xoog leh gaar ahaan dhanka beeraha badda iyo kalluumaysiga dhoofinta maxaa la yiraahdaa waxyaabaha Soomaalidu ay xoog u haysato sida xoolaha muuska iyo wixii la mid ah waa gartay marka xiriirka dawladaha Turkiga iyo Soomaaliya waxaa la sheegay in uu saameeyay dilkii wariye Jamaal Khashoggi ee loogu geystay Istanbul taasoo ay filla Soomaaliya la sheegay in ay la safatay dhinaca Sacuudiga Turkigana uu aad muddo in uu ka carooday marka arintaas shirka ma lagu soo qaaday guud ahaan maadaama uu ahaa nuxurka shirka iyo maxaa la yiraahdaa mawduuciisa habka maxaa la yiraahdaa wada shaqaynta hadda jirta horay loogu socodsiin karo aad diiradda uma soo saaraynin dhacdooyinka gaarka ah sida maxaa la yiraahdaa dilkii Khashoggi waxaa laga yaabaa oo kale isbuucyadii ugu dambeysay ama sanadihii ugu dambeeyay oo kale dhacdooyin siyaasadeed inay jireen oo gaar ahaan bariga Afrika taabanaya mise kuwii Turkan ka dhacay sida dilkii Khashoggi oo kale laakiin shirka laguma soo hadal qaadin dhacdadii iyo wasiiradii ka soo qayb galay shirka madaxdii Turkida ahayd iyo guud ahaan dadka ka soo qayb galayba kama soo dhawaajinin arinta Khashoggi ugu dambeyntii xiriirka Turkiga iyo Afrika gaar ahaan Soomaaliya iyo Turkiga mustaqbalka xaguu ku wajahan yahay xiriirka Turkiga iyo Afrika u dhaxeeya guud ahaan markaan ka bilowno wuxuu soo jiitamay ilaa iyo 18-maadkii waxa uu sii xoogaystay dhowr sano ka hor kadib markii uu imaanshihii Erdogan iyo xisbigiisa markii ay talada qabsadeen waxay bilaabeen waxa la yiraahdo isu furka Afrika inay Afrika Turkida ay si xoog leh u dhaxgalaan sanadihii ugu dambeeyay ganacsiga oo Turkida Soomaalidu la leeyahay waxa ay gaarayeen 200 bilyan oo dollar halka maxaa la yiraahdaa sheegeen bilowgii hore uu ahaa 50 milyan oo kale waxaa dareemaysaa markii inuu afar laab kobac oo ku yimid oo kale tusaale ahaan hay-adaha Turkida ah ee ka shaqeeya Afrika ha ahaadaan kuwa ganacsi ha ahaadaan kuwa taageera dawladaha ha ahaadaan hay-adaha oo ka shaqeeya arrimaha bani'aadanimada tiradooda iyo meelaha ay ka shaqeeyaan saldhigyadooda aad bay u yareen hadda Soomaaliya kaliya ayaa waxa laga heli karaa dhowr hay-adood oo xarumo ku leh sidoo kale Ethiopia laga heli karaa shirkadaha Turkida hadda waxay qandaraasyo ka sameynayaan Ethiopia iyo sidoo kale wadamo kamid ah galbeedka Afrika marka tallaabadani waxay muujinaysaa in sanadaha soo socdo xajmiga ganacsiga ee u dhaxeeya Turkida iyo Afrika guud ahaan iyo kan u dhaxeeya Turkida iyo Soomaalida uu aad u kobci doono xiriirka dawladaha Afrika iyo maxaa la yiraahdaa iyo Turkiga u dhaxeeyna inuu wada xoog banaan doono waxaan sidoo kale in la tilmaamo mudan Turkiga sanadihii ugu dambeysay waxa ay noqdeen xubin oo joog ka ah shirarka midowga Afrika marka waxay tilmaamaysaa oo kale sida iyaga ay u daneynayaan iyo Afrika guud ahaan sida ay Turkida ugu furan tahay sababtoo ah Turkidu waxay xambaarsan yihiin taariikh ka duwan dalalkan kale oo Soomaalida iyo Afrikaankuba ay partnerka leeyihiin ha ahaadaan kuwa reer galbeedka Yurub iyo kuwa North America ha ahaadaan
aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa xasan cabdi xasan oo ka tirsan hay-adda daraasaadka iyo horumarinta bariga Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Istanbul. khadka Skype ayuu noogu waramay. ugu dambeyntiina guulaha ay Soomaalida Minnesota ay ka gaartay doorashadii dalkan Mareykanka ka dhacday bishii hore ayaa lagu tilmaamay mid ku timid ka qaybgalka ballaaran ee jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi ay ka qayb galeen doorashooyinkaasi. haddaba waxaa xarunta VOA ee Washington nagu soo booqday Cali Abshir Cali Ganay oo ka tirsanaa ololihii ay ku soo baxday Ilhaan Cumar. ugu horeyn waxaan Cali weydiiyay sababihii keenay in Soomaalida ay sida weyn ay ugu lug yeelatay ama ay uga qayb gashay doorashooyinkaasi. waa runtii arrin muhiim ah oo waxa weeye sidaan hore u sheegayba dadka Soomaalida waxaa la saarayay caburin xagga luqadda campaign-ka ah. campaign-ku wuxuu leeyahay slogans iyo luqadahaas marka dadka musharaxiinta ay ku hadlayaan mar waxay ka hadlaan environment-iga, mar waxay ka hadlaan guryaha, mar waxbarashada. nimanka jamhuuriga marka waxaas oo dhan waa iska daayeen. issue waxay ka dhigteen inay arrimaha Soomaalida ka hadlaan, yiraahdaan businessadooda khaldan waa xireyna, sharci darre wadanka ku joogaan, sharci darre ku codeeyaan. taas marka waxay dhiirigelisay oo maaragtay runtii alert ka dhigtay dadkii Soomaaliyeed. marka waxaa dhacaysa aad arkaysaa dad 20 sano 60 sano ahaa oo weligood codeyn laakiin hadda codeeyay, not only inay codeeyeen, lacag bixiyay in maaragtay xisbiga dimuqraadiga ay gacan siiyaan, shaqeynayay, dadka soo gurayay. waxaa arkaysaa macnaha last 4 years doorashooyin ma ka shaqeynay. ma arag weli dad inta ku soo wac yiraahda 20 qof baan 30 qof baan inaan kula shaqeynaa rabnaa, ama inta ku soo wac yiraahda hana la qaado meesha laga codeynayo hana la geeyo, ama ilmahoodii dhiirigelinay inay codeeyaan, ama waayeelkii caawinaya. marka dadka waxa motivate gareynayay xoogaa waxa la oran karaa biyi baa nagu soo dhawaaday, neefti baa nagu yaraatay, waxaan dareenay hir nagu soo socda. marka dadka Soomaalidaana markii la ficlo waxa way midnimadooda iyo danahooda waa u istaagaan. marka taas ay dhiirigelin weyn runtii ahayd. ugu dambeyntii Cali oo Soomaalida cududaasi ay muujiyeen iyo sida weyn ay doorashada uga qayb galeen, natiijada ka soo baxday sidee ayay kula xisaabtami karaan dadka ay doorteen ee Soomaalida ahaa iyo waliba kuwa kale ay doorteen ee aan Soomaalida ahayn? waa xaqiiq taas oo waxa weeye mar walba qofka adiga maaragtay kugu dhaqanka ah, kugu dhibaatada ah, dantaada inuu ka shaqeeyo uu ku qasbeen waayo meelo badan isku dan baa ka noqonaysiin. laakiin muhiimadda marka qofku siyaasi yahay, siyaasigu sidiisa wuxuu ku shaqeeyaa marka hore codku ku weydiisanaya sababuu ku weydiisanaya, guryahan wax ka qabanaya, immigration wax ka qabanaya, waxbarashada wax ka qabanaya. waxyaabaha dadku ay marka horeba campaign ku soo galeen weeye oo mar walba qofkan website-kiisa ku jirta language-ka waxay ugu qoran tahay maaragtay flyerska iyo documentiga dadka siinayo. haddii marka dib aad u raacdid qofku wuu ku qasban yahay, shaqo kale ma qabanayo. hadda sharciga ugu horeeyay Ilhaan ay qortay muxuu noqday in xijaabka la ogolaado. marka taas maxay ogolaanaysaa? taas waxay u ogolaanaysaa gabdhihii muslimka ahaa inaan iskuulka lagu dhibin doonin, inaan meelo kale dawladda lagu dhibi doonin, in maaragtay irid weyn bay u furaysaa dadkii. marka arrintaas marka diiniyana way noo anfacaysaa, ayadiina intii ay dhihi lahayd dadka iyo sharciga wadanka iska raacaya, sharcigii bay bedeshay si uu dan anaga noogu noqdo. sharciyo badan oo kale saas oo kaleana way qori doonaan, ayagoo dhanna way ka shaqeyn doonaan arrimahan. laakiin wax gaar Soomaalida u noqonaya way yaraanayaan. laakiin waxyaabo waxaa jira ummadda aan la wadaagtid, ilaan guryihii baa la wadaagtaa, iskuuladii baa la wadaagtaa, wadooyinkii baa la wadaagtaa, nabadgelyadii baa la wadaagtaa. sida ummadda kale ay u raadinaysaa annaguna u raadinaynaa. dadka siyaasiyiintan aan dooranay marka hal mid baa ay kaga duwan yihiin kuwa jamhuuriga ah. ayaga ammaan baan ka helaynaa, nama dhibaato nooma geysanayaan. laakiin kuwa jamhuuriga waxay taagan yihiin war dadkan hala xirxiro, hala tarxiilo, hala dhibo, hala ciqaabo. taasa marka horta in ammaan helnaa, horta taasa muhiim noo ah. tan labaad waa ku kalsoonahay dadka Soomaalida hadda la doortay inay yihiin dadka ugu quality-ga fiicnaa, ugu waxtarka badnaa. sababtaasina loo doortay iskama soo bixi karo qofna siyaasadda Mareykanka maahan meel iska fudud inuu qofku iska soo baxo. waa inuu yahay qof marka horeba la soo diyaariyay oo system-ka keenaya taas. waayo hadda hodan fiirisid 3 qof oo Soomaaliya la soo tartantay way ka soo baxday. maxamuud hadda fiirisid wax badan buu soo tartamay, waa aragnimo leeyahay, wuu ka soo baxay. Ilhaan qof 2 jeer maaragtay speaker ahaa baa la tartamay, waxaa la tartamay Soomaali, waxaa la tartamay sanad dad ku jiray, dadka way aragsan la tartamay, haddana way ka soo baxday. taas waxay ku tusinaysaa waxbay dadka dheer tahay oo ay dadka ka gadaysay oo dadkuna ay aaminsanayeen inay waxaas ay tahay wax qabad ay soo ka horin karto. shaqadeedana way bilaabaysaa insha Allah. aad baad u mahadsan tahay Cali Abshir Ciise Cali Ganay oo ka tirsan jaaliyada Soomaalida ee gobolka Minnesota oo nagu soo booqday xarunta VOA ee magaalada Washington.
haatanna waa wararkii ciyaaraha waxaa inoo haya wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade. wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijkeena qubanaha maanta. haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa goor dhaweed waxa ay ku farxalatay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ciyaar adag oo ka dhacday garoonka magaalada London ee Emirates Stadium ee kooxda Arsenal ay ku ciyaarto labadan kooxood oo ka wada dhisan waqooyiga magaalada London isla markaasina kamid ah kooxaha ugu nacayb horyaalka waddankaasi ayaa ciyaartooda waxaa sugayay taageerayaal aad u fara badan. macalinka kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa markii ugu horeysay laylinaya kooxda Arsenal ciyaartan loo yaqaano London Derby, waxaase ciyaartiisa uu muujiyay inuu yahay macalin adag isla markaasina aan ciyaartooyda xataa qaarkood dhag u dhigaynin. waxa uu kursiga kaydka ku iloobay isla markaasina aanu soo fariisinba ciyaaryahan Mesut Ozil oo maalmahan la lahaa isaga iyo macalinku iskuma wanaagsana. kooxdiisa Arsenal oo bedel uu ku sameeyay qaybtii dambe ee ciyaartana waxa ay dhigtay wacdar oo 4 gool iyo 2 ayay guushu ku raacday ugu dambeyntii. sidaasina ciyaaryahanada Aubameyang, Lacazette iyo Torreira ayaa goolasha u kala dhaliyay Arsenal. Aubameyang ayaa 2 dhaliyay, Dyer iyo Kane waxa ay goolasha u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. goor hore oo maanta ahaydna kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo toddobaadkii hore ay ku soo galgalatay Tottenham ayaa tiri xanuunkii aad igu dhigtay ka soo kabsaday oo 2 gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Fulham oo kulankeedii labaad uu leylinayo macalin Ranieri oo kooxda Chelsea lafteeda macalin hore ugu soo ahaan jiray kulankiisii ugu horeeyay ee toddobaadkii horena soo badiyay. hase yeeshee Chelsea oo caraq qabtay ka soo raacday magaalada London dhexdeeda ayaa mar kale magaalada London ku badisay. waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Real Betis ayaa Real Sociedad waxay kaga badisay 2 gool iyo 1. waddanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta AC Milan oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa kulan adag oo ay Parma kula ciyaartay garoonka San Siro Stadium waxay ku badisay 2 gool iyo 1. ciyaaryahanada Crotone iyo Kezi ayaa goolasha u kala dhaliyay kooxda kubadda cagta ee AC Milan. ugu dambeyntiina ciyaaraha feerka miisaanka culus habeenkii xalay ahaa goor dambe waxaa garoonka Staples Center magaalada Los Angeles ku ciyaaray ciyaaryahanada Tyson Fury iyo waliba Deontay Wilder. labadan ciyaaryahan ayaa si aada kulankan dhex marayay loo sugay, waxa uu ahaa feer xiisihiisa leh oo 12kii wareeg ee labadan ciyaaryahan ay kulmeen waxa uu ku soo gabagaboobay in ay barbara noqdaan, walow ciyaaryahan Tyson Fury dhulka 2 mar dhigay isla markaasina uu muujiyay adayg iyo in uu yahay nin aan laga adkaan karin. inkastoo taageerayaasha labada dhinac mid waliba uu leeyahay guushu inaga ayayna ahayd, labadan ciyaaryahan ayaan la ogeyn goorta kulanka dambe ay wada ciyaari doonaan oo waxaa laga hadlayaa haatan in la isku celiyo kulan kale oo markaasi ay labada ciyaaryahan ku xafiltami doonaan. daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeennii ciyaaraha ee maanta. tan iyo kulan dambe waa Mascado idila sidaa iyo nabadgelyo. mahadsanid Mascade. daawadayaal intaana waxaa inoogaga dhan barnaamijkeennii qubanaha maanta. tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.